assalaamu calaykum. tan iyo bilowgii kanaalkeennan sahanka xogaha wax marba marka ka dambaysa aynu soo bandhignaa xogo badanka bulshadeenna ku ugub oo ka dahsoonayd sida badanka ahna daaran khiyaamooyinka iyo dabinnada iyo xeeladaha ay gaaladu taariikhda oo dhan inoo soo dhigayeen iminkana ay weli inoo dhigayaan. sababta aynu sidaas u samaynaynana waa hal qodob oo qura taxanaha xaqiiqada qadhaadh ee aynu ka diyaarinay kuwaas inkaarqabayaasha ee maasuuniyadda. waxaynu xalqad ka mid a xalqadaha ku soo qaadannay in masiibadaas maasuuniyadda ee gaaladu ay maanta u adeegayaan ay leeyihiin 3 cadow oo waaweyn oo aanay ka tallaabsan haddii ay iswaajahaan. saddexdaasina ay yihiin saddexda ay wax walba u sameeyaan sidii ay uga adkaan lahaayeen, ha ahaato dagaallo, khiyaamooyin siyaasadeed, gumaysiyo, gumaadis, gaajaysiin iyo macaluul, awoodda uu dowladaheenna laga ilaaliyo iyo waxyaabo la mida. saddexdaas cadowna waa saddexda haddii ay iskaashadaan aynu masiibadaas maasuuniyadda ah ka adkaan karayno, gaal oo dhan iyo khiyaamooyinkiisana aynu fahmayno. cadowga koowaad waa iimaanka ilaahay subxaanahu watacaala aynu ku qabno, iimaanka aynu ilaahay aaminsannahay, yaqiinta aynu ilaahay ku qabno ee aaminsannahay oo dajaalka ay u ololeynayaan marka uu yimaado waxaa raacaya ciddii bilaa iimaan ah uun oo u arkaysa inuu yahay ilaah. cadowgooda labaadna waa taariikhda iyo sooyaalka. mar kasta oo qofku taariikh hayo oo uu og yahay wixii soo dhacay iyo wixii uu shalay soo ahaa, waa mar kasta oo cisigiisa iyo karaamadiisa iyo dadnimadiisa ku dhaato. mar kasta oo taariikhda ogaadaana waa mar kasta oo uu fahmo cadaawihiisu xeeladaha uu hore ugu soo dhigay iyo ilaa hadda kuwa uu dhigayo, sidii uu uga hortegi lahaana uu guntado. cadowgooda saddexaadna waa garaadka, sida madaxa bannaan ee iyaga ka xortaa u fakeraya, isaga oo fakarkaas ka soo dheeganaya iimaanka uu ilaahay ku qabo iyo taariikhda uu akhriyey ee baadhayo iyo ogaalka uu xogaha badan keydiyey ee uu garanayo wixii uu soo ahaa, waxa uu hadda ku sugan yahay iyo mustaqbalkiisu dhanka uu ku waajahan yahay. haddaba gaaladaas maanta inaga adkaatay waxa ay si walba inoogala dagaalamayaan saddexdaas in aynu kulmisanno. haddii iimaankaagu uu xooggan yahay, taariikhda iyo wixii soo dhacayna aad hayso, garaadkaagana aad kaga shaqaysiiso oo aad garanayso halka aad ku waajahan tahay iyo waxa aad ku sugan tahayba, ilaa ninka waxa soo socda aan garani waxa joogana ma garto waxaad garanaysaa cidda cadowgaaga ah iyo cidda saaxiibkaaga ah, cidda ku danaynaysa iyo cidda kaa danaysanaysa iyo wax kastoo noloshaada ku aadanba. hadda waxaynu isla fahansannahay sababta suuradda dhan ee qur-aanka loogu magac daray taariikhda qasas. ilaahayna subxaana watacaala uu nabigeenna u amray in uu taariikhda iyo dhacdooyinka inooga sheekeeyo oo inooga warramo. qur-aankeennana intiisa u badani ay u tahay taariikhda, faqsusil qasasa lacallahum yatafakkaruun. intaas haddaynu si wanaagsan isula fahannay, inoo keen barnaamijkeennani qodobkaas uu daaran yahay ee musalsalka suldaan cabdilxamiid, musalsal ka mida filimada ugu qiimaha badnaa ee noloshayda daawado, amaba aynu nidhaahno filimada ugu qiimaha badan ee adduunka la matelay. musalsal dhan taariikheed, dhan fikir, dhan islaamnimo, dhan siyaasadeed iyo inaad ogaato wixii aad ahayd iyo adduunka halkii aad kaga jirtayba kaa kaabaya. aanan odhan karo haddii aad isaga dhammaystirato oo dhuuxdo uma baahanaysid aqoonta siyaasadda inaad jaamacad u gasho oo mar qura ayaa casharkii oo tiyori ama aragti ah iyo isagii oo baractikaale ama la dhaqan gelinayo oo itus oo taabsiya ah lagu wada dhigayaa. waa adiga iyo fahanka markaa. haddaba maxay u diidan yihiin sii socodka musalsalka suldaan cabdilxamiid? maxay ugu cadaadinayaan turkidu inay joojiyaan? aynu isla garanno sababta. markii la doonayay in la kala burburiyo muslimiinta oo inba meel gaarkeeda loogu cuno ee khilaafada islaamka ee cusmaaniyadda ay gaalada reer galbeedku ku soo qaadeen duulaanka siyaasadeed ee ay qoomiyadaheeda ku kala furfurayeen, siyaasadihii qurunka ahaa ee ay u dhigeen, kaartooyinkii ay u sameeyeen, dabinnadii ay u maleegayeen ee hadba ay qoomiyadaha ku kala irdhaynayeen, sidii aynu ku soo aragnay barnaamijkeennii armeniyaanka iyo turkida cadaawaddooda waxa sababay arrimahaas oo dhiganayaasha taariikhda ee laga qoray la isaga soo xooriyey. ayuu qoraaga musalsalkaas sheekadiisa qoray meel isugu keenay, kadibna filinkaas oo lagu muujinayo noloshii suldaanka cabdilxamiid iyo halgankii uu soo maray iyo sidii uu gaarada ugu soo babac dhigay ayaa si qurxoon loogu soo gudbinayaa musalsalkaas. shakhsiyadaha xilalkii dowladnimo matelayana mid weliba waxaad moodaa in uu yahay kii ugu habboonaa ee booskaas loo heri karayey dhanka filinnimada. ma aha filin sida hindida cagafta laadka ku tuuraysa oo kale ah waa filin mashhad kasta iyo muuqaal kasta loo sawiray sidii xaqiiqada ugu dhoweyd, inkasta oo aanu haddana xoogaa qaladaad taariikheeda ka madhnayn. dadkaas cusmaaniyiinta ahaa ee khilaafadaas hadhkeeda hadhsanayey waxaa loo kala dilayay guud ahaan 5 sababood oo waaweyn
oo inay khilaafadu burburta ay reer galbeedka siyaasadahooda muhiim ugu noqotay. kow inay khilaafadu gacanta ku haysay deegaanka Falastiin oo ay doonayeen Yuhuuddu in ay ka sameeyeen dowladdaas argagixisada ah ee gaboodfalka wadda ee Israa'iil. Suldaan Cabdilxamiidna uu khilaafadiisii ku waayey sidii uu dhulkaas uga ilaalinayay gaaladaas doonaysa. markii dambe ee khilaafadii ay duntayna ay khaayimiintu hadiyad ahaanta u siiyeen dhulkaas Falastiin. laba in khilaafadu ay ku fadhiday adduunka ubuucdiisa iyo bartankiisii, haddii ay tahay inay kulminaysay qaaradaha Afrika iyo Aasiya iyo Yurub oo intaba ay ka talinaysay, waxna isku xidhaysay marinada ganacsiga caalamka oo inina badaheeda ayay maraysay, inina barigeeda. taasina dhibaato ayay ku noqotay reer Yurub. saddex in maadaama ay khilaafadu ahayd hagoog iyo go'shaale oo ay muslimiinta adduunka oo dhami wada hagoogan yihiin, marka muslimka galbeedka Afrika la dulmiyo waxa uu awoodayay khaliifku inuu amar u diro muslimiinta bariga Aasiya ee Hindiya oo halkaas ay danaha gumaystayaasha iyo gaaladaas joogta cadaadis ka saaraan, kadibna uu sidaas muslimka bariga adduunka ku badbaadiyo. muslimka galbeedka adduunka hagoogtaasna inay muslimiinta ka baabi'iyaan ayay doonayeen si ay ugu fududaato inay inba si degan u gumaystaan oo caalamka islaamka qolaba meel ay ugu cunaqabateeyaan oo cunaha ugu dhegaan. afar waxa waayahaas la ogaaday macdanta shidaalka ee loo yaqaano dahabka madow, waxaana soo baxay ikhtiraacyo u janjeero dhanka shidaalka oo la doonayay in looga faa'iidaysto macdantaas tamar gaadiidku ay ku shaqeeyaan. siyaasadaha caalamiga ahina waxay markiiba dareemeen in ay macdantaas shidaalku noqon doonto qarniga soo socda ee 20aad oo dhan waxa la isku dili doono ee masaalixda iyo danaha dowladuhu ay ku wada xidhmi doonaan. balse waxa la yaab noqotay in badiba deegaanadii ay macdantaas shidaalku jiiftay ay noqdeen deegaanada muslimiinta ay khilaafadu ku fadhido. intaas ay khilaafadaasi nooshahayna aanay suuragal ahayn inay macdantaas reer galbeedku kala soo baxaan oo ninba uu ceel meel ka dhurto. suldaankaas Cabdilxamiid markaas la casilayna waxa uu wadiiba sidii uu xidhiidh ula samayn lahaa Jabaan ee uu shidaalkaas soo saari lahaa si shidaalkaas islaamka bilaash loogu dhurtana. waxaa lama huraan noqotay in khilaafadaas islaamka meesha laga saaro oo gebigeedaba la dumiyo. qodobka shanaad ee muhiimka ay ugu ahayd gaaladaasi inay khilaafadaas dumiyaan waxa uu ahaa inay meesha ka saaraan awoodda islaamka ee markasta oo ay yiraahdaan waa idinkaa ka adkaadayba dib u soo tarmaysa. ilan waa khalqi dhan oo hal qol looga talinayo si ay ummadahaas midba gaar xad ugu jeexaan, midba gaar dhaqamadooda ugu baraan, midba gaar maamulkooda khaayimiin iyaga adeecay oo u hogtay ay uga dhigaan, midba ay gaar ugu fogeeyeen diintooda, midba marka uu isku soo taagaba ay mid kale ugu garaacaan oo ugu karbaashaan oo labadiisa xigaba cadow isaga dhigaan. ummadaas dhan islaamkana ay uga dhigaan xayn adhi ah oo 5 neefba meel lagu xereeyey oo xeraba ay xerada ku xigta u aragto cadowgeeda. isku soo wada duubo 5taas qodob oo waaweyn iyo boqolaal qorshe oo kale oo ay hoosta ku wateen waxay hoosta ka saxaxeen dhimashada khilaafadii islaamka ee Cusmaaniyadda. gaalo oo dhamina waxay awoodooda isugu geeyeen duminta dowladdaas. ciddii u babac dhigtay ee ay dhan ay ka dhaafanay waayeenna waxa uu ahaa suldaankaas Cabdilxamiid oo muddo 30 sano ah madaxa kaga taagnaa oo ay ka talaabsan waayeen. kadibna waxa ay fahmeen inaanay Cusmaaniyadda dumin karaynin Cabdilxamiid oo ay meesha ka saaraan mooyaane awoodooda oo dhan waxay isugu geeyeen sida ay Cabdilxamiid xilkaas u daba marin lahaayeen. haddaba musalsalkan suldaan Cabdilxamiid waxa uu iyada oo nool oo tus oo taabsi ah muujinaya taariikhdaas ba'an ee wada qodaxda iyo xurgufta ah dagaalkaas ka dhaxeeyay sirdoonka suldaanka islaamka ah iyo sirdoonka gaalada ee Ingiriisku horboodayay, dagaalkii ka dhaxeeyay suldaanka iyo boqorada gaalada, dagaalkii ka dhaxeeyay ururada sirta ah ee ay maasuuniyadu horboodayso iyo suldaan Cabdilxamiid, khiyaamooyinkii ay ku galageynayeen ee isugu dirayeen ummadaha iyo qoomiyadaha khilaafada ku nool sidii Armeniyaanka iyo Greega marba khilaafada loogu soo qoryeynayay, sidii Carabta marba la isugu dayay in khilaafada la nacsiiyo iyo waxaasoo dhanba dagaal ka darnaa oo ahaa dagaalka saxaafadda. siday saxaafaddu dagaal qaawan oo badheedh ah ugu haysay suldaankaas Cabdilxamiid ee ay Cabdilxamiid ugu bixisay suldaanka cas ama suldaanka dhiigyacabka ah. dhammaan arrimahaas oo midiba ay mid ka daran tahay ayuu musalsalkaasi muujinayaa. waxaa intaasba ka siiyaa badan in musalsalkaasi 33 sano ee suldaanku uu talinayay 13 sano ee u dambeeyey uu ka soo qaatay oo 20 sano ee horeba uu iskaga yimi. 13 sanana waxa khiyaamooyin iyo siro iyo dabino iyo jalaafooyin istaba wareegaya aad yaabayso. almuhim musalsalkaasi waxa uu koobsaday dhisid uu quweynayo oo xoojinayo inaad aragto horta waxa tahay inaad isgarato. iminka inagii ayaa isweynay oo meel aynu joogno aan garanaynin
oo meel aynu ka jeedno iyo meel aynu u jeednaba aan garanayn ee bal horta innagu inaynu ishelo horta bal innagu inaynu is-aaminno oo garanno inaynu nahay dad jira oo gaara oo dhaqan iyo diin iyo awood iyo ciidan iyo calan iyo hub iyo dowlad iyo dastuur ka madax bannaan kuwa maanta ay gaaladu inoo sameeyeen lahaa welina leh cadowna aad leedahay cadowgaasna aad islaynayseen oo ay ka adkaadeen mar labaadkana waxa uu ku siinayaa casharro taariikheed oo itusoo taabsiya oo kaa dhigaya qof rasiina oo siyaasadda iyo dhanka ay u jeedo si wanaagsan u fahmaya oo aan siyaasad looga sheekaynayn kadibna waxaad yeelanaysaa fikir xor ah oo madax bannaan oo ka madax bannaan kale ay gaaladu inoo sameeyeen ee xumbadda yar ku dhex xidhan ee aynaan inaynu dagaal ku jirno inaynu cadow leenahay oo ishayno inaynu gaalada iska kicinno inaynu dadnimadeenna iyo wixii aynu ahayn la soo laabanno midnaba aynan ku hamiyeynin haddii aynu ku hamiyeynana ay afka baarkiisa iyo uurka wax ku jira un dhaafsiisnayn cid u dhaqaaqaysaana badanka aanay jirinba saddexdaas cadow ee gaaladaas iyo dowladahooda iyo maasooniyadahooda iyo qurmadooda oo dhan soo afmeerayey ayuu mar qura musalsalkaasi ku wada siinayaa waana sababta ay si walba ugu cadaadinayaan turkigu inuu joojiyo musalsalkaas oo uu soo afmeero qof kasta oo doonaya inuu siyaasadda aqoon durugsan u yeeshana waa in uu daawadaa musalsalkaas waxaa musalsalkani ku baxaya af turki oo xataa luuqadaas waad ka baranaysaa haddii aad doonayso sabtaytalkiisuna waa carabi linkigaan kala soo dego xalqadihiisana descriptionka ayaan idiin dhigayaa wassalaamu calaykum